marka kubadda cagta la joogo waxaa loo arkaa kala bedelashada funaanadaha arrin muhiim u ah xidigaha si ay isku dhaafsadaan shaarkooda midba midka kale waana arrin muujinaysa ixtiraam iyo saaxiibtinimo. Lionel Messi maaliyadiisa waxaa ka dalbaday boqolaal xidiga ah sababtuna waa hibadiisa kubadda cagta iyo sida uu yahay laacibka ugu hanashada badan abaalmarinta xidiga adduunyada ee Ballon d'Or-ka la yiraahdo. Jacaylka iyo xidigaha kubadda cagta ciyaaro u qabaan maaliyadda Lionel Messi ayaa xitaa ah mid aan la sugin dhamaadka ciyaarta. waana waxa ficil ahaan dhacay kulan ay Barcelona iyo Juventus isku wajaheen koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League kadib markii Leonardo Bonucci uu Messi ka codsaday funaanadiisa ka hor 10 daqiiqo dhamaadka ciyaarta si aan looga hormarin waana waxa ka careysiyay saaxiibkiisa Giorgio Chiellini. Messi waxaa loo arkaa kii ugu tafsanaa ee kubadda cagta taabtay lahna hibo sixir ah oo ku muujiyo xindaabka cagaaran. marka kaamirada aynu dulgeeyno qolkiisa khaaska ah waxaa ka buuxa funaanado badan oo ay sabab u tahay kuwii ka dalbaday funaanadiisa iyo bedelkeeda midii uu ka soo qaatay. Messi weligiis xidig kama codsan maaliyadiisa ilaa marka laga tago hal laacib waana waxa uu ka shifay Messi mar la weydiiyay su'aasha ah kumaad ka dalbatay funaanada kadib ciyaarta balse Messi ayaa ka dhawaajiyay in abadkiis xidig uusan ka dalban funaanada ilaa hal xidig maahane waana markii uu afkiisa ka qirtay magaca xidiga uu funaanada ka codsaday waxaana la fahansan yahay in xidiga uu Messi funaanada ka codsaday uu yahay mid kamid ah kuwa aan mucaaradka yeelan ee kubadda cagta caalamka soo maray. Lionel Messi oo su'aashaasi ka jawaabaya ayaa yiri haddii xidig reer Argentina ah aynu garoon ku kulanno waxaan ku sharfaa oo aan siiyaa funaanadeeda haddii xidig kale uu iga dalbado funaanadeeda si sahlan waa aan siiyaa maaliyada aniga oo ka bedelanaya balse haddii uusan jirin xidig aniga iga codsanayo funaanada anigu kama dalbado. waxaa jiray kaliya hal xidig oo aan ka dalbaday maaliyadiisa waana Zinedine Zidane. Messi iyo Zidane ayaa ku kulmay El Clasico xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay Messi ee kooxda waaweyn ee uu wajahay Real Madrid iyo xagaagii ugu dambeeyay Zinedine Zidane ee Real Madrid waana fasal ciyaareedkii 2005-2006. Messi kulanka uu maaliyada ka codsaday Zidane ayaa ahaa ciyaarta sida weyn weli loo xasuusto kulan ay Barcelona 3 gool iyo eber ku garaacday cadawgeeda Real Madrid waliba hoygooda Santiago Bernabeu. sida darteed Messi xidiga kaliya uu ka codsaday maaliyadii uu ka bedesho ee kubadda cagta ciyaaray waa Zinedine Zidane. bilowga xirfadda Messi ee kooxda sare ee Barcelona iyo kal ciyaareedkii ugu dambeeyay ee xirfadda siiso Zinedine Zidane. Zidane hadda waa macalinka kooxda kubadda cagta Los Blancos waxaana uu macallin ahaan noqday mid aan inaba caadi ahayn kadib markii Real Madrid uu ku hogaamiyay hanashada 3 jeer oo xiriir ah tartanka Champions League. xidig ahaana waxa uu ahaa xidig ku guuleystay wax walba uu u baahan yahay. adiga xidigee ka dalban lahayd maaliyada dhammaan xidigaha kubadda cagta soo maray iyo kuwa hadda ciyaara. magaciigu waa Shaafici Maxamuud Nur Shaafinho.